daawadayaal ku soo dhawaada meel kastoo aad dunida kaga sugantihiin shabakada caalamiga ee Borama News waxay idiin soo gudbinaysaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan buugga maan koriye oo laga qoray Rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye Maxamed Barkhad Miigane oo ku magac dheera xildhibaan Xamaal daba buuggan laga qoray taariikh ahaan iyo macallin intuu ahaaba iyo intii nolosha kale ee bulshada intuu xildhibaanka ahaa iyo guud ahaanba wixii uu soo qabtay ayaaba ku duugan maxay laakiinse yihiin haynoo sharaxaan qorayaasha qalinka u qaatay inay taariikhdaasi banka soo dhigaan waxaan ka hadlaa markaa kow buugga iyo qaab dhismeedkiisa dhalinyarta qortay si wacan bay u qoreen waan dareemi karaa qoraalka culayska uu leeyahay weliba gaar ahaan marka af Soomaali wax lagu qorayo hawl kale ayuu wataa waabka Soomaaliga xeerar ma laha waa wada jaban yahay si loo yiraahdo iyo si loo dhiganayo ilaahay baa garanaya si kula noqoto ma loo dhiga saasoo hadana tahay anu buugga markaan akhriyay maalin baan ku akhriyay aroor hore ayaan bilaabay waa joojin kari waayay because sababta wax kale ma ayna ahayd buug si wacan baa loo qoray waa aad runtii qurux badan qaab dhismeedkiisa wuxuu ka kooban yahay 8 cutub ayuu ka kooban yahay maadaama markaa buuggu ka hadlayo taariikh nololeed sidaa ku qoranna magaca waxa weeye waa maan koriye maan waynu garanaynaa waxa weeyaan de maskaxda iyo garaadka iyo wixii la halmaala afka Soomaaliga aad uma kala saarayntaas markaa waxay ku turjumaysaa waa macallin buu ahaa dad dhisayay ayuu markaa buuggu ka turjumaya waxa kale uu sheegayaa milicsigii maalmihii macallin iyo mudane isku jira marka qaab dhismeedku wuxuu ka bilaabmayaa inuu ka warramo cutubka koowaad sooyaalkiisii nololeed Allah u naxariisto oo ka bilaabmaya waqtigu dhashay meesha ku dhashay dhulku ku soo barbaaray waxbarashadiisii dhalinyarnimadiisii ilaa intuu ka gaadhayay uu ka noqonayay magaranaysaa siyaasi weyn oo wadanka laga yaqaano cutubka labaad waan soo gaagaabinayaa kullee buugga waxaan rabaa inaan iskiin baro kaliya haddaan akhriyada qaarkii ma inta ku joogi doona waa dhaqanka Soomaaliga waan naqaanaa waxa la buugga hebel ii soo gaabi magaasoo qof laba kelmadood ka sheega lama akhriyo marka buugga saad u akhriyadaan idin soo gaabin maayo laakiin soo yarta taaban doona waxa ku xiga marxuumku Allah naxariistay waxa uu lahaa curim uu lahaa wuxuu curin jiray qasaayidka afka carabiga ku qoran waxa nin suufiya oo qaadiriye ah oo waxa weeye suufinimo waliba meel sare ka gaaray waan ka warrami doonaa marka cutubkaas ayaa wuxuu ka hadlayaa suufinimada wuxuu ku soo kordhiyay iyo qasaayidkii uu qoray qaar koodna waan akhriyo doonaa insha Allah taala in kastoo aanan ku looqeyn kareynin oo ma hi qaadiriye ma hi waxa ku xiga cutubka saddexaad oo ka warrami doona socdaal uu ku yimid wadanka macallin isaga macallinkiisa ahaa macallinka aynu ka hadlayno macallin Miigane macallinkiisii oo nin cadaan ah oo Walter la yiraahdo oo Mareykan ahaa oo wadanka maqnaa ku dhawaad 60 sanadood soo noqodkiisii iyo wuxuu kala kulmay ardaydii uu ka tagay waaga oo Miigane uu kamid ahaa oo dugsiga dhexe waqtiga ku jiray oo aad iyo aad runtii u daayira rag fara badan oo markaa waqtiga la joogina buugga uu markaa sheegayo soo noqodkiisii iyo wuxuu la kulmay iyo soo dhaweyntiisii iyo taariikhdii halka ka dhex samaysantayna buuggu uu ka warramayaa qaybta afraad wuxuu ka warramayaa geeridiisii Allah yarxamu wuxuu dhintay sida dadka muslimiinta ay u dhintaan jug soo dhacday kuma dhiman alxamdulillah kuma dhiman mawtal qafle alxamdulillah ilaahay baa laga mangalaa rasuulka ilaahay kama gala buu yiri qofka sarirta ku dhintaa dhinaca islaamka uu ka wanaagsan yahay qofka mawtal qaflaha waayo de rasuulku bay naguma digeen ama ducadaasi lama sameeyeen sadarteed muddo waa jiifay ilaahay waxa ka rajaynaa markaa in dambi waqtiga kaga maydhay halka laftiga taariikh baa ka curatay taariikhda markaa chapter ayaa ka warrami doona waxa kale oo ku jira xasuustii ardayda Miigane oo runtii ay ugu mudan yihiin qolada halka fadhida oo soo ururisay iyo qolihii kale markaa uu soo barayay ku dhawaad 40 sano ayuu markaa macallin ahaa lama koobi karo dad waaweyn oo fara badan baa dad jooga ardaydiisa laakiin kaska iyo garashada ayaa waxay ku soo dhacday qolihii markaa goor dambe iska markaa ugu dambeeyay ee markaa marxuumku ka tagay dabeetana waxa laga soo ururiyay xasuus fara badan oo macallinkooda ku xasuusanayaan chapter baa soo koobaya kaagu ku xiga waxa weeye tacsiid marxuumka runtii qof weyn marka uu geeriyo waa naqaanaa de waxa weeyaan dadkoo dhan aad baa loo xasuustaa taariikhdiisa iyo noloshiisa iyo soo jirnimadiisa aad baa loo xasuustaa marka tacsiid ayaa weeri laga yiri oo runtii dadka bulshada ugu mudan haday madaxweyne tahay iyo halka ugu hooseysa haday to ardaygiisa ugu hooseeyay marka la joogay kursiga la fadhiya haday ay tahayba dad badan ma marka ka soo gudbiyay waxa weeyaan aragtiyo iyo dareenno ay marka ku muujinayaan wax qabadkiisii cutubka toddobaad
waxa weeyaan dareen celin baa jirta laga warramayo haldoornimadii iyo waxqabadkiisii gabagabada oo ahaa cutubka 8aad wuxuu ka warrami doonaa waxa maansooyin laga curiyay baroodidiisii marka cidii ka curisay iyo maansooyinkii laga yiri oo runtii si wanaagsan u qoranna buuga ayay ku dhex jiraan ana soo koobaya buug horta waa intaas ayuu ka warramaya waa 8 chapter weeyaan anu intaan akhriyay wixii aan ka bartay ma rabaa inaan yar guud maro kow waxaan ka bartay inuu ahaa shakhsiyad runtii koobsaday ciwaanada ama taytalada ama magacyada isku yeedho bilaadanka maanta oo laga yaabo qof inuu xibad haysto isagoo 5 ciwaan buu lahaa kow wuxuu ahaa bara sare ama professor jaamacadeed ama macallin kow laba wuxuu ahaa sheekh weyn oo dhinaca qaadiriyada ee looga dambeeyo oo xer leh oo koox leh oo akhriya oo alifa oo diyaariya oo muraaqooda oo ooya oo lala ooyo waxa kale oo ahaa siyaasi weyn oo tan iyo 93kii Soomaaliland maanta la asaasay ilaa intuu ka dhimanay xildhibaan ahaa golaha baarlamaanka Soomaaliland haddii la tartamo iyo haddii la magacaabayaba cid aan soo garab istaagi jirin waxa kale oo ahaa aqoon-yahan weyn oo la wada garanayo oo dalka dhan laga garanayo runtii tilmaami karmaya professor Salibaan iyo joogo runtii sheegi doona waxa kale oo ahaa nabadoon waqtigii Soomaaliland nabad dal dhisayay dadkii soo dhisay ee waliba aqoon-yahanka ahaa ee wax qorayay ee farsamada waday ayuu ku jiray intaasoo ciwaan waa lahaa kii markaa loogu yeedhaba sax bay ahayd waa sheekh maxamed waa professor maxamed waa siyaasi maxamed waa aqoon-yahan maxamed waa nabadoon maxamed waxa kale oo ka bartay taariikh badan aan raadinayay runtii oo ku jirta buug oo ahayd gobolka wadal waxa lagu yaqaanaa ma garanaysaa ayay wada tashiga iyo halabuurnimada iyo ururada bulshadu iskood iskaga dhisato wuxuu ahaa markaan taariikhda akhriyay qofkii ugu horeeyay 1986kii urur bulsho oo NGO ah ka asaasay degmada Boorama NGO markaa waxa loo bixiyay guus baa loo bixiyay wuxuu ka shaqeyn jiray markaa arrimaha bulshada gaar ahaan dadka tabaalaysan waqtiyada qaxba lagu jiray dhibaatooyin badan baa jiray marka ururka guus oo aan baan soo gaaray kiyo shaqeeyo aan garanayo xafiisyadooda iyo dadkii u shaqeyn jiray waan garanaya si fiican u garanaya inta weyna way garanayaan laakiin ma aan ogeyn يعني halkay ka soo bilaabantay dadku inay sameeysan NGO annagu waxaan sameeysanay NGO ka ku soo xigay waqtigaas oo aasay 2001 la sameeyay inta u dhaxaysana wax boronka lama sameeynin marka laga tago ururo kale oo soo sooyo kaas ay kamid ahaayeen marka wuxuu ahaa asaasi ugu horeeyay isaguna asaasay NGO-yada ama ururada bulshada ay iskood wax ugu qabsanayaan waxa kale oo inta halkan ku jiray aan ka bartay inuu ahaa dadkii ka qayb qaatay xornimadii Djibouti loo galay 1977kii wixii ka horeeyay waayo isaga qoyskiisa iyo walaalihiiba waxay ahaayeen dad reer Djibouti ah in badan halkaas ku noolaa wax barasho laga diray markii dambe loo diray dalka ay magaranayeen Lebanon kana soo diyaariyay heerka labaad ee masterta ka soo diyaariyay Djibouti waqtigaas laga diray waxaana diray ilaa naxariistay madaxweynihii hore barqan migani aanu idinka xigno dhamaantiin oo maaha intuu wax noo taray hadday noqoto siyaasadda dhinacayagun bay ahayd oo hargeysan buu badnaa hadday noqoto jaamacaddana alxamdulilah marka annagu gurdambaysiisii iyo garabkiisii buu ahaa aan nahay almudankiisu yahay doqoni waa mooge meel buu la joogaa rasuul mawle soo diraya ragaad magaca wadaagtaan horey dhaxal muujeena mar haddaan sidiina bilaan madax la reebayne maxamuud sidiisii haddaan la masuubayne oo aan macnaha loo ekeyn sidii maxamed barkhad meygane allahu naxariistee dhinac fara badanna ka eegay markaa waxaan leeyahay marka wax la qoro iyo wax hagaagaan wuxuuna manaafacaadu yeeshaa haddii aan runta ka hadlo horta inamadaas reer Hargeysa aad bay nooga badiyeen waayo waxyaabo fara badan oo faa'iido ayay soo bandhigeen oo ay soo qaada dhigeen marka anigu waxaan jecelahay aniga ahaan inaan maanta u hambaliyeeyo oo soo bagaadiyo oo la wadaago farxadda iyo dareenkayga waxaan u soo kacay shucuurtayda oo aan isxaji kari waayay dareenkayga oo aan la wadaago farxadda walaalahay maanta ay muujiyeen waxaan leeyahay walaalayaal soo dhawaada welcome waan iga fadhinaa inta ayay ka badan ayaalo nin dhalinyaraayo dhiirigelinta xagga gobolka ku fiican sidaasi oo kale hoggaan dhaqan oo garo iyo geed ay soo wada fadhiisteen howlo badan ay soo wada gorfeeyeen oo iyagu si weyn ab iyo isirba ay iskugu soo hor fadhiisteen ayaa iyaguna taariikhdii oday dhaqannimo waxa ay ku sifeeyeen sida tan maxamed barkhad taariikhiisii waa laga soo sheekeeyey anuu intaan ka ogaa nin mutacallina oo macallinna ah
oo soo maray macallinnimo iyo waxbarasho intaba soo maray mar haddii aasaaskiisii la arkayo cidda wax ka qortayna aan maanta sida Soomaaliya ama Somaliland tahay ee qabyaaladda la isku taageero aanay ka muuqanin wanaagiisa intaas ay naga filan midda kale waxaan oran lahaa carruurta isxilqaantay inaka buuga ka qortay macallinka inta yar u ahaa abaalgud ha looga dhigo buugaga ay sideen oo dhan in laga iibsado oonay buugag la noqonin ku sii iibiya iyo ku akhristaba waxaan ku gabagabeynayaa aanoonan iska sii cudur daartoonidhi macallin hadal fiican ma ihi hadalkuna imika ma bilaamayo xamaal allah u naxariisto aad uma kala weyna dadka iskuulladu tacliinta marka la bilaabay sheeday iska wada argaysay annaguba madaxweynaha hadda jooga iskuma aanaan soo gaadhin intermediate markaan waxuu ka baxay markii aan ahayn amuud ay secondary ku jireen ayay annana intermediate aan ku jiray sheedaan ka arkayn maxamed iskuma aanaan soo gaadhin allah u naxariistee laakiin waxaan isu soo gaadhnay shaqadii macallin baanu ahaa markii uu la foola galay sanadkii u dambeeyey ay ka baxayeen weliba iyo sanadkii ka horreeyey maalintii ay qalin jabinayeen march 73kii xafladdii lagu qabanayay oo qoladii u horreysay la foola ka baxday aniga master of ceremony ahaa qabanqaabada ku shaqo lahaa runtii kalaaskaas waa kalaas aad u firfircoon oo weliba reewdal ku badan yihiin ayay ahayn isaga iyo أحمد جدي موسى أحمد عمريو الله نحرسته حسن داهر وسيئيو إذا عين كاسة هاي لا مركيو وأنك عجيب نبدي سمركو شهادة غاطي إنك شقي رد ولا مرات سنة وكي حاجة نص وكعاية جناسك قلاية بابورت علاج بوتي كوشور جدي نور الحلال كرات رنتي جامعة هرقيسة مركي لفوري جامعة هرقيسة بايد ولا بس شرب لفوريو سجالي مرة فرايو أفرتي وده يقول كذا أفرتي مالها وركادت كنا وما هي سنة ضياس وين التعليم يو حاكو شقيارو فروي أنا قاعد ويدا مرة سامد حق الله ونحرس عقال بالو تقول لي باشا قال نوفر نو بسم الله فبراير لما تنكيدي لما دي يكون بالفراي ولا بس أنا نكورين مركا الفاق صدق سنة كورين مركا لا يقول أرتدي لقاتل لكن أوفيشالي مركا الفراي waxaa macallimiinta ka bilowday buu ahaa isagoo hargeysa ka dhiga jaamacadda hargeysana waxaan ahayn laba mataanuun baan ahayn marka horta nin wuxuu ahaa xildhibaanadan kale ka duwan ee adimaka moodo geelkiiska hargeysa ay isugu wada tegey oo aan runtii filayno daayartaan xasuusinayaaye doorka dambe markaad wax dooranaysaan eed xildhibaana dooranaysaan intana soo xereeya rag الله ونحرسته محمد وكالنا ماشي ينوكي إذن كعود كعيه. وقورين إلهي بمهدلين بدش نسكوك إن كان نقول نبدي عافمات قبنا إسلام كانوا وجوجنا وحوين أو إنه نموتشنو قفوين إلهي بوينو أكتي نكبحي إنه تصنع إنه تشرهان ونجم قيه لكن روحهان يسامين تيسي الدنيا ذا كهردي أو حوجدا بيوقف كبنادم كهوجارو سداي نوجناي dadku dhamaantood waa safar waxayna ku qiimeysmaan safarkaasi marka uu dhamaado qofkaasi imisoo saameyn adduunyada kaga tagay oo dadkii ka dambeeyay ay ku xusaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu horeynba waxaynu u weydiinaynaa waalidkeen macallinkeen xildhibaankeen maxamed barkhad meegane in ilaahay subxaanahu wa ta'aala u naxariisto dhamaanteen allah u naxariistada aynu leenahay iyadoo hadiyada ay saacadan qabrigiisa ku gaadho oo loogu sheegay adduunyada in wax wanaagsan kaga yimid arday iyo aqoonyahan iyo ummad jecel oo kaga yimiday in hadiyada ducada ay gaadhabeen ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga rajaynaynaa mas'uuliyiinta dhammaan ka soo qayb galay ee muujiyay qalbi wanaag iyo in allah u naxariistay qof weynagteena oo ka ahaana waan uga mahad celinayaa kulankan ay ka soo qayb galeen adduunyada waxaynu dhalanay inagoo dadka hareeraheena jooga ay dhammaan qoslayaan oo ku qoslayaan inuu qof wanaagsan u soo dhashay in yarba waxay nasiib u heshaa adduunyada markay ka baxayaanna in loo ooyo qosolkii shalay lagu qaabilay in oohin lagu sagootiyo laga ooyayo inuu qof wanaagsan adduunyada saagay laakiin in baa nasiib daraata oo adduunyada markay dhalanayeen lagu qoslaa maalintay ka dhimanayaan lagu qoslaa oo leeyahay qof shar badan oo umada dhibay baa ka baxaya bagu ka tagay wakiinkii carabkii lahaa walita ya ibnu aadama baakiyan والناس حولك يضحكون سرورا فاحفظ لنفسك إذا بكوا يوم فراقك ضاحكا مبسوطا waxaad ku dadaashaa inay aadano adduunyadan adigoo ooyaya dhalatay dadka kuwa hareeraysan wada qoslayaani maalinta tagayso
car iyagoo ooyay ka tag adiguna aad qoslayso ood ku qoslaysa adduunyadan intii yarada joogtay inaad saamayn wacan kaga tagtay oonad ciil ka qabin sanadihii aad joogtay inaanad hawl iyo dhibaato ummaddaanad ku soo kordhine horumar iyo wanaag iyo waji furnaanaad ku kordhisay allah u naxariista waalidkeen in walbo ka soo qayb gashay allah uga mahad celiyo intaa wanaagsan ka soo qayb galaan waan ka cudur daaranayaa waqti yar oo shirkiga soo habsaamay saaxiibkay maxamed barkhad miigane ayaan anigii ku qoranahay waxay noogu sharfeen buugga cid kastoo akhristaa inay daahir maxamuud xaddi akhrido anigoo ah taytal berigii hore iga dhintay oo iyo midaan dhiban baan leehay mata brofeysarku ma dhinto guddoomiye waxbarashadee hore anigoo ah saaxiibna markaan ahayn ayaa ku qoran beyjka ayaan aad uga sheekeeyey saaxiibtinimadii aan lahayn anigiiyo maxamed barkhad biigane oo ahay rag isku faamlia yacnii nin ka tirsan qoyskiisa ayaan noqday imika waxaan ku hadlayaa afka qoyskiisa ayaan ku hadlayaa afkii cabdirasaaq afka cabdirashiid afka gargaara afka xaasaskiisa ayaan ku hadlayaa waayo ceyshow milix baan ahayn cunto intaan ka cunay lama xisaabin karayo daynta badan igu lahaa ma celin karayo waxaan noqonnay walaalo markaa imika waxaan ku hadlayaa hadalkii afka qoyska wax intii laga sheegay kuma celcelinayo oo waa ta lagu soo gebagabeeyey inuu ahaa milgo macallinnimada ku lahaa milgo ayuu ku lahaa macallinnimadii mudananimadana milgo weyn buu ku lahaa laakiinse waxaan haddaad eegto daahir maxamuud xaddi wuxuu ka sheegay waxaad arkaysaa hadallada halkaa u dambeeya waxaan baroordiiqda ka sheegay mudaniyo wuxuu ahaa macallinkaa weyne inta mudan ayuu ugu mudnaa magacyada guud ee fiicfiican inay xaaji ibraahim cigaal siiraanyo hebel cabdiraxmaan tuur aadan cadde sayid maxamed cabdulla xasan taariikhda soomaaliya inta mudan ayuu ugu mudnaa magacyada guude cashirkana habkuu marinaya una maqraynayey murtidiyo siduu sheekamaal nin sheekamaal u ahaa moogtahay aad u sheekamaal buu ahaa murtidiyo siduu sheekamaal uga madyaxayey masaakiinta goortuu arkiiyo mudana waayeela siduu ugu miciinayey midigu siinayey ayuu meeluu joogaba khalqigu maanku ku hayaaye ama marida shimbiruhu dee ama marida buuraha gasaa madag dhabaysaa shimbirtii baa jiqjiqjiqjiq biigana waa nin fiican jiqjiqjiq shimbiraha ku sheegaya shimbiraha sheegaya inuu nin fiican yahay ama marida buuraha gashaa madag dhabaysaa magaciisu waa gudubsanaa tan iyo naymaar barma naymaar tan muslimka la laynayo magaciisu u gaadhsanaa macna male adduunyada macaan labada maalmoode midda runna waan wada ognahay labada meeloode aakhiro allow meelsagee macallinkii hoyday